Asalaamu calaykum asxaabta. Kusoo dhawaada channelkeena aragtida maanta. Muuqaalkeena maanta waxaan ku sharaxaynaa filim lagu magacaabo Outbreak, kaasoo soo baxay sanadku markuu ahaa 1995. Filimkan ayaa laga metelay fayras uu soo qaaday daanyeer laga keenay Afrika. Fayraskaas oo ku faafay dadka oo dhan ka bogasho wacan. Sheekada filimkan ayaa ku bilaabanaysa intii lagu guda jiray dagaalkii Kinshasa ee sanadku markuu ahaa 1967 ka dhacay dalka Congo. Diyaarad helicopter ah ayaa imaanaysa xero ciidan, taas oo ay la socdaan laba nin oo dharka difaaca ee qafilan wata, iyagoo baaraya fayras ka dilaacay xerada ciidanka, kaas oo askar badan ay u dhinteen wax ka yar 24 saacadood. Labadii nin ayaa dhiig ka soo qaaday qaar ka mid ah askarta si ay baaritaan ugu soo sameeyaan, waxayna ku soo laabteen diyaaradii helicopterka ahayd. Dayar kadib, diyaaradii ayaa soo dulmartay xeradii ciidanka. Ciidamada ayaana u maleeyay diyaarad u siday gargaar, balse waxay ku soo tuurtay bam, taasoo xeradii dhammayd dhulka la sintay oo ka dhigtay dambas. Labadii nin ee afku u xirnaayeen ayaana sidaas ku qarxiyay xeradii ciidanka si ay u joojiyaan faafitaanka fayruska. 28 sano kadib dhicitaanka arrinkaas, Colonel Daniel oo ah dhakhtar cudurrada faafa ku takhasusay ayaa isagoo u qubeynayay eegiisa waxaa u soo dhacay taleefan, kaas oo loogu sheegay in level 4 virus uu ka dilaacay waddanka Congo. Fayraskaas oo sababay dhimasho badan. Daniel ayaa soo aaday xaaskiisii hore ee Robi si uu uga tago eeyihiisa, maadaama uu u socdo waddanka Congo si uu wax uga soo ogaado fayraskan cusub. Maalinkii xigay, Daniel ayaa la kulmay General Billy oo ah sarkaalka ka sarreeya isaga si uu uga helo warbixin dheeraad ah oo ku saabsan xaaladda. Daniel ayaa soo raacay diyaarad isagoo ay la socdaan laba sarkaal oo kala ah Casey iyo Salt. Colonel Daniel ayaa u sheegay saraakiisha kale in ay taxadaraan. Salt ayaa isagu sheegay in markiisii ugu horreeyay ay tahay. Waxay yimaadeen waddanka Congo, waxayna gaareen xaafadda uu ka dilaacay cudurku oo meydku isdul saaran yahay, kuwaas oo dhulka yaalla. Waxayna la yaabeen oo ka shoogeen xaaladda meesha ka jirta. Waxay soo galeen guri ay ku dhinteen hooyo, aabba iyo carruurtoodii oo uu haleelay fayrasku, kuwaas oo ka nool yahay kaliya wiil yari. Salt ayaa argagaxay, wuxuuna u adkeysan waayay xaaladda, isagoo iska siibay qalabkii difaaca. Colonel Daniel ayaa u sheegay in uu iskarantiilo maadaama laga yaabo inuu qaaday fayraska, balse nin ayaa u yimid isagoo u sheegay in wali cudurkan uusan gaarin in lagu kala qaado neefta. Wuxuu sidoo kale u sheegay in dhammaan dadka deegaanka ay u dhinteen sababta fayraska. Fayraskan ay dadku u dhimanayaan ayaa qofka qaada 2 ilaa 3 maalin kadib. In uu u dhimanayo ayaa la hubaa 100%. Wuxuu sidoo kale u sheegay in nin la shaqeeyo injineero caddaan ah, kuwaas oo dhisay waddo ka mid ah Kinshasa, uu yimid xaafadan, kadibna uu ceelkan ka cabay biyo, sidaas ayuuna fayrasku ku faafay. Daniel iyo kooxdiisa markii ay soo ururiyeen xogtii, waxay ku soo laabteen Amerika. Colonel Daniel ayaana ka warramay xaaladda iyo faafitaanka fayraska. Dhanka kale, nin Chinese ah oo jooga waddanka Congo ayaa soo qabsaday daanyeer wada fayraska, wuxuuna u soo safriyay waddanka Mareykanka isagoo soo saaray markab. Kadib nin lagu magacaabo Jimbo oo ka shaqeeya dekedda ayaa daanyeerkii ka soo xaday dekedda, isagoo doonayay in uu ku iibiyo suuqa madow. Maalinkii xigay, isagoo u sii socda suuqa si uu iibiyo daanyeerka, ayaa daanyeerkii ku soo tufay biyo, sidaas ayuuna ku qaaday fayraskii. Wuxuu daanyeerkii u geeyay nin tukaanle ah si uu uga iibsado. Daanyeerkii ayaa xagtay ninkii tukaanlaha ahaa isagoo ka keenay dhiig, sidaas ayuu isna ku qaaday fayraskii. Ninkii tukaanlaha ayaa iska diiday in uu ka iibsado daanyeerka, isagoo u sheegay inuusan qiimo joogin. Ninkii ayaana daanyeerkii geeyay duurka, wuuna iska sii daayay. Dhanka kale, Colonel Daniel iyo kooxdiisii ayaa baaritaan ku sameeyay dhiiggii ay soo qaadeen, ayaa waxay ogaadeen in uu yahay fayrus halis ah, kaas oo ku faafa taabashada, isagoo dadka dilaya 24 saacadood gudahood. Fayraskan ayaa ah kii 28 sano ka hor lagu arkay isla waddanka Congo. General Donald iyo General Billy ayaa ah labadii nin ee 28 sano ka hor qarxiyay xeradii ciidanka si ay u soo afjaraan faafitaanka fayraska. Donald ayaa weydiiyay Billy in kayskan laga saaro Daniel si uusan arrinkaas waxba uga ogaan. Jimbo ayaa soo raacay diyaarad u socotay Boston. Intii uu diyaaradda saarnaa ayaa wuxuu dareemay in xaalad xumi ay la soo daristay. Markii uu diyaaradda ka soo degay, wuxuu la kulmay saaxiibtiis oo ku sugaysay airport-ka, isagoo dhunkaday. Sidaas ayay iyana ku qaaday fayraska. Wax yar kadib Jimbo dhulka ayuu ku dhacay. Sidoo kale ninkii tukaanlaha ahaa ayaa isna dareemay xanuun,
wuxuu isna ku duldhacay alaabta waxaana loola cararay isbitaalka. Kalkaaliyaha ayaa ka qaaday dhiig si uu u soo baaro. Intii uu baaritaanka waday ayaa waxaa ku soo finiinay dhiiggii isagoo wejiga kaga firdhay. Sidaas ayuu isna ku qaaday cudurka. Robbie oo ah Daniel xaaskiisii hore ayaa ah dhakhtarad ka shaqaysa ka hortagga iyo kantaroolka cudurrada faafa ayaa ka warheshay xaaladdan cusub waxayna soo aaday isbitaalka si ay ugu kuurgasho xaaladda Jimbo, balse nasiib darro waa uu dhintay. Waxay ku samaysay qalliin si ay wax uga ogaato fayruska waxayna ogeysiisay ninkeedii hore ee Daniel. Kalkaaliyihii iyo saaxiibtiisa ayaa soo aaday shaneemada si ay waqti ugu soo qaataan. Wuxuu dareemay xaalad caafimaad darro isagoo qufacay waxaana hawada raacay fayruskii wuxuuna ku faafay dhammaan dadkii joogay shaneemada. Wuxuu u soo baxay bannaanka si uu biyo u soo gato balse dhulka ayuu ku dhacay waxaana loola cararay isbitaalka. Muddo yar kadib dadkii magaalada oo dhan ayuu soo ritay fayrusku iyagoo loola cararay isbitaalka. Fayruska ayaa u faafaya si degdeg ah. General Donald ayaa ku amray General Billy in lagu soo rogo magaalada karantiin iyadoo ciidamada la isticmaalayo. Wuxuu sidoo kale u sheegay warbaahinta in aysan warbixin gudbin karin adduunyadana laga qariyo xaqiiqda fayruskan si ay u ilaashadaan danahooda gaarka ah. Magaalada oo dhan ayaa lagu soo daadiyay ciidamo militari ah. General Billy ayaa u sheegay Colonel Daniel in uu tago hospitaalka weyn ee magaalada wuxuuna la kulmay Robbie iyadoo tustay bukaanada uu soo ritay fayruskan oo la karantiilay. Waxaa si degdeg ah loogu yeeray in uu arko bukaano cusub oo la keenay isbitaalka kuwaas oo aan cidna u samayn gargaar degdeg ah. Wuxuuna ogaaday in fayrusku uu ku gudbayo hawada isagoo dhex maraya neef-mareennada. Baaris dheer kadib wuxuu ogaaday in cudurkan uu soo gudbiyay xawayaan waxayna soo aadeen dukaankii ninkii xawayaanada iibin jiray iyagoo arkeen daanyeer aan ahayn kii markii hore keenay cudurka balse isna qaaday fayrus. Xaaladda magaalada ayaa sii xumaatay waxaana isku dhacay dadkii iyo ciidamadii. Dadka qaar ayaa isku dayay inay ka baxsadaan magaalada balse ciidamada ayaa ka hor istaagay in qof uu ka baxo magaalada iyagoo isticmaalaya rasaas nool. General Billy oo horey uga qayb qaatay fayruska hadda ka dilaacay magaalada ayaa ku tijaabiyay in lagu daaweyn karo nooc daawo ah oo lagu magacaabo 1101. Daawadan ayaa la siiyay dadkii balse waxba kama aysan tarin. Daniel ayaa u sheegay General Billy in ay dadka uga digaan inaysan guryahooda ka soo bixin maadaama fayrusku uu hawada raacayo ayna adag tahay in laga hortago. Waxaana dadkii lagu amray inay bannaanka u soo bixin haddii ay xaalad caafimaad dareemaanna ay iyaga soo wargeliyaan. Ciidamada ayaana dadka u soo qaadayay isbitaalka. Dhanka kale sarkaalka baaritaanka la waday Daniel oo lagu magacaabo Casey ayaa waxaa ka jeexmay dharkii difaaca isagoo uga dhigay qalab balse Casey ayaan cidna u sheegin. Isagoo shaqada ku jira ayuu istaaga ka dhacay waxaa isna loola cararay isbitaalka. Dr. Robbie oo rabtay inay bukaanka dhiig ka qaado ayaa waxaa mudday cirbad iyadoo iyana qaaday fayruska. General Billy ayaa u wacay Colonel Daniel wuxuuna u sheegay in amar madaxweyne soo baxay oo ah in magaalada la baabi'iyo si looga hortago faafitaanka fayruska. Cawadana lagu dhaqaaqi doono fulitaanka amarka madaxweynaha. Balse Daniel markii uu soo laabtay intuu u soo socday isbitaalka waxaa soo wacay Salt wuxuuna u sheegay inuu qof soo wacay kuna wargeliyay in Jimbo uu soo xaday daanyeerka oo lagu soo qaaday markab kaas oo markiisii hore laga keenay Afrika. Ciidamada ayaa lagu amray inay meesha ka soo saaraan dhaqaatiir uu ka mid yahay Colonel Daniel balse Daniel iyo Salt ayaa ku baxsaday helicopter si ay u soo helaan daanyeerka iyagoo soo aaday markabkii la sheegay in lagu soo qaaday markiisii hore. Kolkii uu markabkii soo gaaray uuna fuulay dushiisa ayaa waxaa la tusay meydka ninkii Chinese-ka ahaa ee markii hore soo qaatay daanyeerka kaas oo u dhintay fayruska. Daniel ayaa arkay sawirada daanyeerka wuxuuna durba soo aaday TV-ga isagoo ka sheegay in qofkii arkaa daanyeerkan uu sida ugu dhaqsiyaha badan ula soo xiriiro. Haweeney ka mid ah dadka deegaanka oo lagu magacaabo Jeffries ayaa xaqiisatay in daanyeerka la raadinaya ay haysatay gabadheedu iyadoo markaas la ciyaaraysay waxayna isla markiiba soo wacday Colonel Daniel wuxuuna si degdeg ah ku gaaray guriga Jeffries iyagoo daanyeerkii ku muday sun sidaasna ku qabtay. Daniel ayaa wacay Billy isagoo u sheegay inuu helay daanyeerkii sababay fayruskan lana xakameyn karo faafitaankiisa. Diyaaradii Daniel siday ayaa waxaa soo cayrsatay diyaarad kale si ay Daniel u wadaan. Ugu dambeyn Daniel ayaa baaritaan ku sameeyay daanyeerkii wuxuuna ogaaday daawada fayruska. Inkastoo kaasi uu dhintay haddana waxaa laga gaaray Robbie oo lagu muday daawadii. Donald ayaa amray in mishinka magaalada lagu baabiinayo la dhammaystiro balse Daniel iyo saaxiibkii Salt ayaa ka war helay waxayna qaateen diyaarad helicopter ah wayna ka hor istaageen iyagoo bamkii ku tuuray badda. Gabagabada filimka Donald ayaa ku adkaystay qorshaha lagu baabiinayo magaalada
hase ahaatee Bill ayaa ka hor istaagay una sheegay inuu xarig yahay. Ugu dambeyn Robbie ayaa ku caafimaaday daawadii, sidoo kale dadkii magaalada ayaa dhammaantood qaatay daawadii wayna wada caafimaadeen. Asxaabta qaaliga ah, muuqaalkeennii maanta intaas ayuu ku eg yahay. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina. Fadlan channelka subscribe noo saar, like iyo share kana ha naga ilaawin. Mahadsanid.